Soomaaliya burburkii kadib 1990 wixii ka dambeeyay waxaa yani meesha aad u soo galay NGO badan local ahaadaan ama international ahaadaan of course macna hawl badan way qabteen shaqo badan waa qabteen laakiin markaa fiirisid the goal ama the role of the NGO waxa waaye it's always a short term intervention macna muddo gaaban in wax lagu qabto maalan abaaraa dhacday abaartaas in mataqaanaa si degdeg ah loogu gurmado wax loogu gaaro مثلا waxaa loo baahday abuur yari ayaa dhacday abuurkii in la keeno oo mataqaanaa dadka loo qaybiyo kanaala loo baahan yahay in mataqaanaa oo la jeexo laga qabto waa jiraan hadda yani hay'ado oo soo baxeen ama donors soo baxeen ay leeyihiin yani private sector development ayaan samaynaynaa economic growth ayaan ka qayb galaynaa laakiin mid loo baahan yahay in la xasuusnaado يعني donors iyo macna development organizationska ma ku keeni karaan horumar dhaqaale ama horumar dhinacan private sector development haddii ay Soomaalida ayaga ay isu tashan Soomaaliya waa jiraan dad yani business ku jira marka waa muhiim dadkaas inay ayaga macna inay u istaagaan wadankaas dhaqaalihiisii sida loo horumarin lahaa waxaa aad iyo aad muhiim u ah private sectorka iyo government institutionska ama dawladda inay wada shaqeeyaan yani horumar kasta oo laga fikirayo in la gaaro through the private sector wuxuu ku xiran yahay policies and regulations ayuu ku xiran yahay oo ah mas'uuliyadda dawladda marka labadaas haddiisan isku xirneen policygii iyo regulationskii oo waxaan lagu hagi lahaa the private sector haddaysan jirin marka taasna waxa waaye culays badan ay yeelanaysaa midaal ahaan haddaan soo qaato haddii qofka private sectorka uu rabo inuu wadankan wax ka dhoofiyo way ku adag tahay dhoofintaas inay galaan sababta waxa waaye regulationskii ama quality control measureski oo looga baahnaa wadanka inay lahaato aysan jirin inta badan gudaha laftirkeeda quality control measure ayaa loo baahan yahay in la ogaado maxaa mataqaanaa cudurro oo iyo cayayaamo ka jiri kara maxaa toxic effect u yeelan karaa productskan oo Soomaaliya gudaheeda lagu beero marka taasoo kale waa wax dawladda ay shaqo ku leedahay inay controlkeeda lahaato policyga inuu jiro qofka beerleyda ama private sector developmentga sameynaya inuu og yahay sharciyadaas inuu hoggaansamo marka that ayaa lagu gaari karaa horumar oo mataqaanaa gudaha ahaato ama dhoofin haddii la gaaro sidaas ayaa lagu gaari karaa